iyadoo la soo gabagabeeyay shirkii ka soconaya magaalada Garowe oo looga hadlayay arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa arinta shirka ku aadan waxa hadal ka soo saaray xarakada mujaahidiinta al-shabaab afayeenka xarakada shabaab al-mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere oo shir jiraad ku qabtay maanta duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xarakada al-shabaab iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka soo horjeedaan shirkii ka dhacay magaalada Garowe oo looga hadlayay arrimaha dastuurka la xiriira waxaana uu sheegay shirkaasi in uu yahay shir lagu baabiinayo kitaabka Ilaahay isla markaana dastuur cilmaani ah oo gaalada ay soo dhoodhoobeen lagu sameeyo sida hadalka uu dhigay asigoo hoosta ka xariiqay in shirkaasi marnaba uusan ka dhaqan gali doonin geyiga Soomaaliya shirka waxa looga hadlayay sidii loo tirtiri lahaa shariicada Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka Ilaahay koonka looga bixin lahaa maxaa yeelay waxay cadeeyeen oo afkooda ka cadeynayaan shirka in looga hadlayay in loo qoro ummadan waxay ku magacaabeen dastuur telefishinka Soomaaliya TV dastuurka hadda Garowe qabanqaabadiisa uu ka socdo haddii ay soo dhameeyaan hawshiisa ma laga yaabaa in laga hirgeliyo Soomaaliya gudaheeda xarakadana maxaa kaga aadan arintaas abadan biidilaahi tacaala ma ka hirgeli doono inta qof muslima oo diinta iska dhab al-shabaab iyo maxay ahayd xarakada iska dhab inta qof muslima oo ahlu tawxiida oo diinteeda maxay ahayd quyuur ay joogto lagama yaabi doono in kitaabka Ilaahay lagu bedelo dastuur ay gaalo noo soo sameeyay in lagu bedelo insha Allah tacaala ma dhici doono biidilaahi tacaala mana ogolaan doono Sheekh Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere ayaa sidoo kale inta shirkiisa jaraa'id uu watay waxa uu baaq u jeediyay dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada Puntland maadaama shirka uu ka dhacay magaalada Garowe oo deegaanada Puntland kamid ah waxa dadka reer Puntland ee muslimiinta ah waxa weeye dhiig iyo naftooda ogol inay u bixiyaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo shariicada Ilaahay inay kuwa iyaga waxa la midka ah ay iska qabtaan waxaana gaaladu waxa way makri badan ay soo maleegeen laakiin makrigoodii laga badbaadi xaaladda maanta Soomaaliya runtii ay ku sugan tahay waxa way Ilaahay jalla wa ala nasrigiisa iyo guushiisa ay haysataa ugu dambeyntii afayeenka xarakada al-shabaab ayaa waxa ay su'aalo ka weydiiyeen saxaafadda dagaalo ka dhacay maalmihii la soo dhaafay gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo ay ciidamo hubeysan ay ku qaadayeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin Muqdisho oo kamid ah meelaha dawladda ay gacanta ku hayso waxaana uu sheegay in dagaaladaasi iyo kuwa kale oo ka balaaranba ay fili doonaan ciidamada dawladda iyo kuwa kaaba ee AMISOM asigoo sheegay in Muqdisho idil ay tahay goob furun ahi إن شاء الله تعالى دجالكو الدبار واحد يقشيد يبقاري ملا صد كشكتي يكده إلى برك إن شاء الله وتقدرنا بإذن الله تعالى المجال المقدسة لنا وافرين ذاتك المسلمين تنا وحلنا هاي آد وقد دكتور هذا آد وقف هذا قال يقال راعي المسلمين تمام الجوجان آد وقف هذا مقدسة لنا وحلنا بإذن الله تعالى وافرين الدقاب تقالوا إن شاء الله تعالى hadalkan al-shabaab ka soo yeeray ee ku aadan dagaalada ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya iyadoo mas'uuliyiinta dawladda qaarkood ay horay u sheegeen in ay guulo ka gaareen dagaaladii Muqdisho ka dhici jiray imikana gacanta dawladda dhammaan Muqdisho ay u gashay Cabdi Kaamil Yuusuf Maxamuud Soomaaliya TV magaalada Muqdisho